gudoomiyaha degmada Dila Aadan Cismaan Sadci oo maanta kula hadlayay qaar kamid ah warfidiyeennada xarunta degmada Dila ee ka tirsan degmada Bakiya gobolka Awdal ayaa ugu horeyn ka waramay howlgallo wada banayn oo muddooyinkii u dambeysay waday dawladda hoose ee degmada Dila taasi oo looga goleeyahay sidii bilicda degmada kor loogu qaadi lahaa duqa degmada Dila oo arintaasi ka hadlaya ayaa sheegay aad iyo aad baad mahadsantiin maadaama ay ku timaadeen degmadeedii oo ay soo booqateen wada banayntaasi badankeyga waan banaynay wadooyinka waxa inta yar baa hadhay inta ka bacdina waxaan doonaynaa rabadanta ka bacdi inaan banayno wadooyinkaasi oo muddo badan dadkii ayna u haysan nin walba jago u haystay laakiin imika ay ogaadeen inay wadadu tahay wax qofku u baahan yahay way dhama idoon meesha wadooyinku markii hore cakarnaayeen dadkuna wadooyinka ay degi jireen imika kolkii wadooyinka laga saaray dadku ay ogaadeen meeshaan wada lahayn una iibsan imiga markii hore sida uu iibsan jiray taasina ahayd wadooyinkooda xidhnaa laakiin kolkii imiga ay ogaadeen ay leeyihiin meelaan wada lahayn iibsan mayno Aadan Cismaan Sadci gudoomiyaha degmada Dila oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay dhismayaal iyo dayactiray dawladda hoose ee degmada Dila ku samaysay xarumo muhiim u ah degmada iyo biyo-gelin ka socota waxana uu yiri MCH-ga wax lagu biiriyay baa jira hool lagu biiriyay hoolkaasi uu dhamaaday xagan kalena repair baan ku wada sameynay dawladda hoose saldhigga sariimada intaba waan dhamaystirnay dib habeyntoodii biyo-gelintuna way ka socotaa Dila oo ay wadaan Jarmalku kulli gabagabay ku dhowdahay boqolkiiba 3 baa hadhay haddii Ilaahay yiraahdo biyo-gelintaas way burdi laga soo qaadayay ugu dambeyntii duqa degmada Dila ayaa sheegay olole nadaafadeed ay ku guda jiraan taasi oo looga goleeyahay sidii loogu diyaar galoobi lahaa xuska maalinta qaran ee 18 May sidoo kalena ugu baaqay shacabka ku dhaqan degmadaasi inay u diyaar galoobaan sidii ay u weyneyn lahaayeen munaasabada xuskaasi waxa ka jira hawl maanta aan wadno oo ah qashinka oo dadweynaha caafimaadka dadkoo dhan u soo dareereen in la xaadho loona diyaar garoobayo 18 May dadkuna ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan waxaan kaga faa'iideysanayaa inay ka soo qayb galaan xuskaasi 18 May waanan u sheegnay dadku way warqabaan way og yihiin marka insha Allah waan u diyaar garoobanaa maanta xaadidaan xaadano waxay ka mid tahay waxyaabaha aan ugu diyaar garoobanay 18 May وعبسلان ساها warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal